السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wanasbada Ikram. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno psychopath. One of wanasbada Ikram friends wuxuuna weydiistay inaan psychopath ka hadalno iyo sidee loo gartaa. Waxaan shan qodob aan ka hadlaa oo lagu garan karo qofka oo psychopathic behavior qabto ama possible psychopath inay tahay. Mid ugu koowaad waxa waaye very charming waaye qofkaaseeto so waxa waaye aad iyo aad ay soo jiidasho u leeyihiin si fudud ay dadka isku jeclaysiin karaan markii ay dadka bulshada weyn la joogaan waxaa la dhahaa qofkan qofka fiican adduunyada maba laha like general public way jeclaadaan and they know si isku jeclaysiiyaan ee dadka hadallo fiican oo la hadlaa si usoo jiitaan so that's mida koowaad waaye mid labaad lack of empathy waaye dadkaasito waxa waaye ma laha wax oo agtooda wax qiimo ka leh ma laha so masalan haddii la dhaho hebelaa dhib gaare shaqadood maaha ma kala jecla so qof ma u xanuunsadaan qof ma u dhibtoodaan wax agtooda casiiska ah maba jiro so lack of empathy waaye taas mida saddexaad waxa waaye they prey on other people's emotions that macnaheed waxa waaye qofka markay usoo dhawaadaan si fiicanay ku darsayaan maxaa tahay weaknesskaaga dhinacyada aad daciifka ka tahay maxaa waaye and then waxaasay isticmaalayaan to manipulate you so for example masalan haddii aan ka hadalno qof masalan oo lasina naga xiriir la leeyihiin oo maybe ku kalsooneen nafteeda ama you know maybe way cayilan tahay and they think waxay mana ku faraxsana cayilkaasito so very easily inay dhahaan waxaas isuubi camal haddoo dhaho ay rabeen ama ay ogtahay inuu qalad yahay wuxuu u dirooyo and diido maybe inuu isticmaalo weaknesskeeda inuu dhaho anigoo ku jecel you know you lucky ina you know asxan ma isuubinaysid ana wax kasta kuu suubiyo aday maybe nin kaleet inuu ku jeclaa lahayn weligaa you know anoo raaliyan ku ahay si kastaa u eg tahay ilaahayna uu og yahay it's just so manipulation waaye and then qofkii waxay ka dhigayaan inay guilty dembi dareento nafteeda si xun dareenta si wax kasta ay ii ka rabaan ugu suubiso ee ii ka uga faa'iidaystaan mida kale waxa waaye mida afraad waxa waaye dadka oo psychopathic behavior qabaan dad oo waxa waaye conscious ma qabaan oo basically damiir ma qabaan marka ku dhahay damiir ma qabaan macnaheed waxa waaye beenay sheegayaan way ku khiyaanayaan way ku xadayaan way markay qalad galaan way inkirayaan and then qof kaleetay culayska madax ku saarayaan shaqadood ma aha beentaas ama qaladkaas ay ka galeen qofka kale priceka ay bixi karto like literally crime ay ka suubiyeen qof kale loo xiraa 30 sano aan shaqadood maaha ma kala jecla naftood bas ay yaqaaniin agtooda wax important ka ah ma laha waxana waaye intihaasiyiin waaye so way ka faa'iidaysanayaan markaasna waa ka tagayaan ama way ku kor soconayaan si ay meesha rabaan u gaaraan and then way ka soconayaan so like damiirkooda basically damiir ma laha and then mid ugu dambeysa waxa waaye they very grandiose waaye which means very way kibir badan yihiin way isla weyn yihiin waxay aaminsan yihiin wax kasta inay ii ka istaahilaan and wax kasta inay ii ka loo suubiyo because waa ku khasban tahay waajibkaaga waaye because aanay hebel ahay camal ay aaminsan yihiin so shantaas lagu kartaa qofka oo psychopathic behavior qabto meeqa la eg yihiin dadka oo psychopathic behaviors qabaan waa 1% of the population so boqolkiiba hal qabo diagnosis of psychopathic markii research la suubiyo waxaa la arkay boqolkiiba 3 dadka oo businessyada rangareeyaan ama you know CEO-da dadka la dhaho boqolkiiba 3 waxaa laga helay psychopathic behavior and diagnosis markii xabsiga dadku jiraan prisonka la fiiriyay boqolkiiba 15 laga helay so waxa u sabab noqon karo qofka inay saas noqoto there's a lot of different things of course saa ognahay generic mid waaye qofka haddii oo ehelkiisa aabihiisa doo waxa qabay psychopathic behavior ama psychopath oo ahay most likely ilmaha mid kamid uu noqon karaa waxaa kaleeto oo sabab noqon karto waxaa lahaa part of the brain oo like maskaxda qofka markay saan tahay qaybtan hore is your frontal lobe and waxay control garaysaa emotionkaaga iyo impulseskaaga
so qaybtaasayta haddii si fiican u dhammaystirmin qofka markii oo ay soo koraysa and usually qaybtaas ma dhammaystiranto fully ilaa 24 sano camal ay qofka gaarto 25 sano ee markaasay dhammaystirantaa so haddii qaybtaas si fiican u dhammaystirmin qofka more likely inuu ku dhaqmo psychopathic behavior of course qof severity way kala duwan tahay so dadba dadaa ka daran but generic environment sometimes haddii oo masalan cunug oo foster care emailhaas lagu soo koriyay oo jaceylkii iyo xanaankii hooyada iyo aabaha u arkin ama isaga isoo koriyo oo jidka isku soo koriyo oo qof jecel macnihiis la barin waxa waaye wuu develop garay karaa psychopathic behavior and then of course part of the brain ama qaybta oo maskaxda ka mid ah oo development ama si fiican u dhismin oo dhammaystirmin way sabab noqon kartaa I hope inuu ku ka jawaabo su-aalihii ay qabtay about psychopath I hope inuu ku faa'iideeyo haddaa further su-aalo qabtid waa isoo qori kartaa ama commentiga hoos ama just email waa intaas iyo nabadgelyo maalin cusub iyo wanaas walaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu